madaxda shirkadda Tabaarik ICT oo aan caawa marti u nahay dabaaldega qiimaha badan ee caawa halkan ay ku dhigayaan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib sharaf iyo milgo iyo qiimo ayay ii tahay caawa inaan ka soo qayb galo una hambaliyeeyo shirkadda Tabaarik ICT madaxdeeda iyo shaqaalaheeda guusha qiimaha badan ee caawa ee halkan ugu dabaaldegayaan in ay ku guuleysteen shahaado caalami ah ISO 9000:2015 saas ayaan filayaa runtii dee haddaan annaga gobolka banaadir nahay waxaan marag iyo markhaati ka nahay xilkasnimada iyo hufnaanta iyo shaqada wanaagsan ay ummadda u hayaan guushooda kama dhigna keliya in sharikad Soomaaliyeed ay ku guuleysatay shahaadadaas caalamiga ah balse waa fariin cad oo shirkadaha private-ka ah ee Soomaaliyeed ay dirayaan oo ah in heerka aqooneed ay u leeyihiin inay buuxiyaan halbeegyada caalamiga ah oo shirkadaha caalamkana ay la tartamaan kuna guuleystaan runtii annagana gobolka banaadir haddaan nahay waxayna gelinaysaa kalsooni aad u weyn maxaa yeelay shirkadda Tabaarik waxay aad noogala shaqaysaa sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaashii hore gobolka banaadir iyo midka hadda jooga intaba ay ku aamineen systemka lacagaha dakhliga aan ku aruurino sidoo kale in arrimaha tiknoolajiyada iyo IT-dana ay aad nooga caawiyaan annaga keliyana ma ahane gobolada dalka Soomaaliyeed oo dhan qaybo ka mid ahna waa u gudbeen marka caawa waan bogaadinayaa waan hambaliyeynayaa shahaadada caalamiga ah ISO ay ku guuleysteen shirkadda Tabaarik ICT madaxdeeda iyo shaqaalaha intaba waxaan leeyahay hambalyo waa mudan tihiin annagana waxaan leenahay kalsooni badan ayaan idinku qabnaa taas waxay tusinaysaa hufnaanta iyo kartida iyo maamul wanaagga ee shirkadda Tabaarik ay muujisay mar labaad iyo mar saddexaad waan hambaleynayaa dhammaan asxaabtii ka soo qayb gashay iyo marti sharafkan aadan uga mahad celinayaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh